ma soo saari kartaa qofka dilaaga haddii aad maskaxdaada aad u tuujisid intaanan bilaabin muuqaalkan iyo muuqaaladii hore jawaabahooda caawa ayaan soo dhigaya insha allah. aroortii axad ahayd ayaa Rose laga helay iyadoo meyda gurigeeda bangalada ah. Anna gabadha shaqaalada ah ayaa wacday booliiska si ay u yimaadaan. dambi baarihii ayaa 3 qof oo laga shakiyay su'aalo weydiiyey oo ah gabadhii la dilay walaalkeed, gabadhii shaqaalada ahayd iyo gabadhii dhashay. gabadhii la dilay gabadhii dhashay waxay ku jawaabtay inuu kujada ayaan aadeysay aan cunno u soo cuno. markii aan soo laabtayna waxaan arkay hooyaday oo meyda. gabadhii shaqaalada ahayd waxay ku jawaabtay inuu guriga xaggiisa sare ayaan aadeysay alaabta guriga loogu hagaajiyo aan u soo qaato. markii aan guriga ku soo laabtay aan isri hagaajina waxaan arkay gabadhii oo meyda. gabadhii la dilay walaalkeed wuxuu ku jawaabay inuu qolkayga ayaan wax ku akhrisanayay markii aan maqlay walaashay oo qaylinaysa. isla markiiba dambi baarihii wuu ogaaday qofkii dilka sameeyay oo markiiba wuu xidhay. adigu yaad isleedahay daba ayaa dilkan geystay oo gabadhan dilay. dilaaguna wuxuu ahaa gabadha shaqaalada maadaama uu gurigu bangalo ayuu ahaa. bangaladana sideedaba xag sare ama meel sare lama koro. boqor ayaa waxa uu samayn jiray maxaabiistiisa ayuu kala dooransiin jiray 2 qol. haddii aad si sax u garatid kay amiirada ama princesstu ku jirto yada ayaad gursanaysaa. haddii aad laakiin ka khaldan dooratid waxaa ku cunaya dragon. 2 boor ama 2 calaamadood ayaa ku kala dhegan labada albaab. mid waxaa ku qoran run, midna waxaa ku qoran been. haddaba booska ninkan hadaa ku jira laadkee dooran lahayd. haddaba albaabkii koowaad saynkii lagu qoray wuxuu halkan ayay ku jirtaa princessku, dragonkana albaabka albaabkii labaadna calaamadii lagu qoray waxay ahayd princesstu albaab uun ayay ku jirtaa, dragonkuna midun ayuu ku jiraa. haddaba haddii aad adigu booska ku jirtid albaabkii ayaa dooran lahayd si aad u badbaadid. jawaabta saxdaayna waa inaad dooratid albaabka labaad maadaama waxaanu nidhi hore albaabada midna waxaa ku qoran run midna been. isaga ayaa runta laga sheegay oo layidhi halkan ayay ku jirtaa princess. calaamada arrowguna waxa ay ka timi xagga room 2. kuma ayaad isleedahay 4 qof ka badbaadi doona dhagaxyaashan soo dhacaya inagoo 1 2 3 4 dhanka bidix ka bilaabayna. qofka sida saxda u gartana bin ayaan ku qaban doonaa. qof kastana waxaan ka codsan doonaa inuu qofka follow gareeyo maadaama uu caqli badan yahay. assalaamu calaykum. dhagaxana waxaa ka badbaadaya 1 iyo 4 2 iyo 3 labadaba dhagax ayaa dilaya. waayo wiilkan yar aabihii ma eeba aabihii mise waa b. qof kastaba choice gooniya ayuu leeyahay uu ku doorto. hadba waxaan niin sheegi doonaa bidnillaahi tacaala hadba kaa dooratay waxa uu ka turjumayo. jawaab kastoo aad dooratana micno ayaa ka dambeeya. waxa aad tahay iyo dareenkaagu siduu yahay intaba waa soo dhinyahay. haddaad dooratay isha ayuu ku hayaa wiilka yar isagoo ayraayar wargeyska marba u dulmaraya. waana uu dareen kacsan yahay, waana u diyaar inuu wiilkan yar ka taxadaro oo daryeelo. haddaad b dooratayna moobaylkiisa ayuu ku mashquulsan yahay, hawadana waa ka baxay, lugahana dhaafsaday wiilkeerna uma jeedo. haddaad dooratay waxaad tahay qof leh xirfad gorfayn oo heer sare ah. waxaad ku tirsan tahay maskaxdaada macquulka kumana degdegtid inaad xukunto ka hor intaanad wada ururin dhammaan xaqiiqooyinka. haddaad b dooratay shucuurta dareenkaaga iyo xooggaaga oo dhammaystiran waxaad u janjeertaa inaad aaminto garaadkaaga oo aadna dhegaysato dareenkaaga. la soco su'aalaha qaar gooniya ayaan tiktok markasta soo dhignaa. fadlan tiktokayga soo booqo.